academy grammar وعشر نحوها أما قام كاللغة اللوردسو verb to have فعل عاوية هيسشدة verb to have فعل عاوية هيسشدة فعل عاوية نردي وحلو استعمالها قفك مركو لي وحاسان هيستا أما وحاسان لي هيبا marka verb to have contains wuxuu ka kooban two laba qaybood waa half present haysasho ka hadlaysa wax jooga waa have iyo has marka qofku wuxuu imaga haysta ama uu leeyahayba wuxuu isticmaali karaa have iyo has buu isticmaalaya iyo half past iyo haysasho ka hadlaysa waqti aad markaa soo dhaaftay waxaad markaa hore u haysatay imaga laakiin aadan haysan marka half present waa have iyo has ka kooban labada eray half past kuna erayga had ayaa la isticmaalaa marka have iyo has waa imaga haysta hadna marka waa waqti hore waxaad haysatay ka hor hadeen ka horeyno half presentiga way magacyaaladeenii I we you they I soo aniga mayn we inaga you adiga they iyaga half bay markaa qaadanayaan marka wixii jamca oo ayna ku jirto half ayay markaa qaadanayaan marka haysasho he isaga she iyada it isaga ama iyada iyadana waxay qaadanaysaa marka saddexdaasina has ayay markaa tusaalaheena arday toos ugu tagno affirmative waa hadalka caadiga waxa la yaqaan affirmative ama positive waa la dhamaa marka qaar kood negative waa diidmada hadalka diidmada ama weerda diidmada ah interrogative ama question waa su'aasha weeyaan she has a cat iyadu bisad bay haysataa imaga ma ay leedahay marka she has a cat bisad bay leedahay ama haysataa she has not a cat hadda diidmo ka dhigayso maxaa haysaa bisad ma haysato hadda su'aal ka dhigayso has ugu soo reysay has she a cat iyadu ma bisad bay haysataa question markna ku dhame laakiin labada hadal ee hore waa statements balarayo iyagu wax ku dhamaadan full stop dhibic yar baad ku dhamaynaysaa laakiin su'aasha iyada calaamad su'aal baad raacinaysaa ama question mark waxa dhawaad raacin doontaa waad arkaysaa he has a car isoo gaari buu leeyahay ama haystaa he hasn't a car isoo gaari ma haysto marka has not saa waad u qori kartaa qaabkan gaabanna waad u qori kartaa oo waa hasn't baa odhanaya marka he hasn't ma haysto a car gaari has he a car isoo ma gaari buu haystaa ama leeyahay it has a meat why it has bisado ama xayawaankaasiba has a meat muxuu haystaa hilib buu markaa haystaa it hasn't a meat so hilib ma haysto ama hilib ma haysato has it a meat iyadu ma hilib bay haysataa I have a new laptop anu laptop cusub baan haystaa I haven't a new laptop anu laptop ma haysto laptop cusub ma haysto ama halkan I have not na waad oran kartaa kale have I a new laptop anu laptop cusub baan haystaa you have big nails adu waxa leedahay cidiyo dhaadheer marka nails waa cidiyadan faraha ka soo baxa ama lugaha noqoto ama gacmaha you have waxa haysataa ama leedahay big nails cidiyo dhaadheer oo waaweyn marka big waaweyn maaha dheerka waa long baa loo adeegsanayaa big nails marka cidiyo waaweyn you haven't big nails adu cidiyo waaweyn ma lihid have you big nails adu cidiyo waaweyn baad leedahay marka baleeg have you has waxa loo isticmaalayaa wixii qofku marka imaga haysto munaasabadaha kala duwan waad u isticmaalaysaa hadal caadi ah hadal diidma iyo hadal su'aala qaybta marka aad baa loo isticmaalaa bal hada question is an answer halka isba ka maqan question is waa su'aalaha an answer is iyo jawaabaha about the lesson ashirka ku saabsan tusaale what does she have iyadu maxay haysataa what does she have iyadu maxay haysataa answer muxuu noqonayaa she has a long red dress iyadu waxay haysataa top way cas oo markaa dheer she has waxa haysataa a long red dress top marka dress waa topka top cas oo dheer bay haysataa she has two big eyes waxa kale leedahay laba indhooda waaweyn she has a good temper iyadoo dabeecad fiican bay leedahay she has a good temper ama you have a good temper haddaan ku dhaha dabeecadaadu way fiican tahay marka temper waa dabeecadda ayaa loo yaqaana waa behavior she has two friends iyadoo laba saaxiib bay leedahay she has a pet cat waxay haystaa bisad ay rabaysato marka pet waa xayawaankeeda guriga lagu haysto she has a beautiful big room waxa kale haysataa maxay qol weyn oo marka qurux badan oo haysta she has waxay haystaa leedahay a beautiful big room qol weyn oo marka qurux badan marka baleegan inta waxay haysato ayaa inta laga soo jawaabay questionka ku xiga what do you have hadaan have isticmaalay ka waran what do you have adigu maxaad haysataa ama marka aad leedahayba what do you have adigu maxaad haysataa ama aad leedahay I have waxaan haystaa a new mobile cusub I have waxa kaloon haystaa a short ama aan leehayba a short brown hair tima markaa buniya oo markaa gaagaaban marka short waa gaagaaban brown hairna waa timaha buniga I have a good English teacher waxa kaloon leeyahay ama aan haystaa macallin Ingiriisi oo markaa fiican marka have iyo has waa haysashada
waqtiga la joogo ayaad kaga hadlaysaa marka tusaale bal adu waxaad ka hadashaa indhahaaga lugahaaga dharkaaga kabahaaga adigoo marka waxaas oo dhan sharaxaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.